wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka daafuray shirka waxbarashada ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir waxaana shirkani inta uu socdo lagu lafaguri doonaa isla markaasina diiradda lagu saari doonaa horumarinta waxbarashada gaar ahaan dhismaha labada gudi oo muhiim u ah waxbarashada kuwaas oo kala ah gudiga qaran ee imtixaanaadka iyo gudiga qaran ee maareynta iyo horumarinta manaahijta waxaana ugu horeyn kulankani ama shirkani daafuray wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna ballan qaaday in had iyo jeer ay dhammaan iska kaashan doonaan wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexeba sida sare loogu qaadi lahaa waxbarashada dalka walaalayaal kulli halkan waxaan u fadhinaa mas'uuliyad wadareedna wada saaran oo ah tayeynta iyo horumarinta waxbarashada dalka oo aan mas'uul ka nahay sida la sheegay waxbarashada taariikh dheer bay soo martay تطرابلية كشاكيين لا يبربر كي دولة دوال لوجا قاب كي كسعتي أنا نفسر كي جت كي واجا كفايد يستيان كجري سوماليا وحال قري مركان منهج كوحنا اللي قبل دل مركان فصل كلاباد المنتريا إنه بوق هذا هو إنجليزه يوحى ساقط كذني محمد عبد القادر حسستان مقعد إنه ماليناي buug madooba oo adkaa oo ingiriiska ah dugsigoos lagu dhigi jiray annagoo soo gadano fasalka labaad markaan bilaawna kadib baa waxaan ma soconayaan af Soomaaliga markaas la keenay iskoolaadkii qasabka ahaa baa yimid guriyaha la isugu soo galay waxaad moodaa si fiican in waxbarashadii ololihii baa la aaday dowladdii waagaa jirtay waxa waaye raggeedii si fiican bay u soo dadaaleen ilaa 90kii hadee ilaa jaamacadaha looga baxay lacag la'aan ilaahay mahadiis annaga hadda waajibaadkeena waxaa meel kasta inaan waxbarashada gaarsiino oo aan baahino taniya tuulo walba in macallin laga helo lambar labo inaan tayayno oo aan tayadeeda kor u qaadno oo manhajka iyo kormeerkiisa iyo in la dhigay iyo waxaas aad aan uga shaqayno mid saddexaad oo ah inaan waxaa la dhahayay shuruucdan iyo regulationadii waxaasna aan iska xil saarno oo wax wanaagsanaan inta aan joogno aan waddanka uga tagno waxaa sidoo kale inta uu socday shirkani ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada waxbarashada ee dowlad goboleedyada dalka waxayna dhankooda ballan qaadeen in had iyo jeer ay ka shaqayn doonaan sare u qaadida waxbarashada dalka maamulka gobolka Banaadir wuxuu heegan buuxa u yahay mar walba qaadashada iyo fulinta mas'uuliyadda heshiisyada waxbarashada dalka si lamada maamul goboleedyada dalka jira waxaana si ku kalsoonahay agaasinka waxbarashada khibradda iyo muxuu ahaa howlaha uu hay maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan waxbarashada dalka waana ku mahadsantihiin wasaaradda mar kale oo u mahadcelinayna Jubbaland oo ku mahadsanyihiin magaalada quruxda badan ee nabdoon ee amniga inay nagu soo dhaweeyaan oo mahadsantihiin gabagabadii waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinaasir Saraar Maax wuxuuna tilmaamay ummadda Soomaaliyeed runtii shirkeenan indhaha ku haysaa wax fiican inuu ka soo bixi doono waan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo subxaanahu wa ta'aala annaguna waan ku dadaali doonaa aragtideena inaan isku soo dhaweyno annagoo ka fiirinayna danta guud oo aan u danaynayn maartay qof iyo aragti gooniya in waxa ummadda iyo ubadka Soomaaliyeed runtii ay ku badbaadayaan waxbarashada meel ku gaarayso yaan markasta ka hormarin doonaa waxyaalaha kale danta khaaska ah aan ka hormarin doonaa ragga halkan fadhiya runtii way soo wada dadaaleen waana ku mahadsan yihiin cid kasta oo waxbarashada ka soo shaqaysay ama haddaba ku dhex jirta runtii waxbarashada waa waxyaalaha nolosha bini aadamka mujtamaca asaasiga u ah marka inaan maamka ku hayno oo dadaalo oo mas'uuliyaddan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina saareen u dhaaranay raggeena halkan fadhiya iyo gabdhahaba waa laga maarmaan aad bay runtii laga maarmaan u tahay Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.